kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada janaalkeena wararka 24 akhbaaraadka weyn ee daawan doontaana waxaa kamid ah dad guryahooda lagala baxay oo lagu gowracay beled xabo madaxweyne waare oo ka hadlay qaraxii lagu laayay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle al-Shabab oo war ka soo saaray qarax lagu dilay mas'uuliyiin culus iyo duqeyn ka dhacday jilib oo lala beegsaday saldhigyo ay lahaayeen al-Shabab qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaana soo dhawaada saaxiibayaal marka hore daawadaha mogaanina subscribe dhahto janaalkeena oo furto gambalka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya waa hagaag daawadayaal aynu ku bilownay dad guryahooda lagala baxay ayaa lagu gowracay magaalada beled xabo xaaladda magaalada beled xabo ee gobolka Gado ayaa haatan u muuqata mid kacsan kadib markii qaarna la dilay qaar kalena la gowracay dad guryahooda lagala baxay magaalada beled xabo dadkan guryahooda lagala baxay ayaa ahaa 3 qof oo midkood ay ahayd haween waxaana guryahooda ku weeraray Dilay hubeysan saddexdan qof ayaa qaarkood la gowracay halka qaar kalena lagu dilay rasaas sida ay xaqiijiyeen dadweynaha ku nool magaalada beled xabo ee gobolka Gado dadka la dilay ayaa magacyadooda waxa ay kala ahaayeen Xabiibo Cabdiraxmaan Cali oo loo yaqaan Xabiibo Ladan oo kamid ahayd ururada haweenka ee maamulka Jubbaland ee beled xabo Xuseen Shariif Cabdulle oo beled xabo ka ahaa gudoomiye waaxid Cabdi Cali Keenan oo ahaa madaxii waaxda maaliyadda ee beled xabo al-Shabab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan ka dhacay magaalada beled xabo ee gobolka Gado waxayna sheegeen inuu qayb ka yahay dagaalka ay kula jiraan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM maamulka Jubbaland wali ma uusan ka hadlin falkan ka dhacay magaalada beled xabo ee hoos tagta maamul ahaan maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Madoobe waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan janaalkeena wararka 24 ha mogaan daawadana subscribe dhahto janaalkeena aad furto gambalka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya markaana haddii aan eegno maamulka Hirshabelle madaxweynaha maamulkaas Hirshabelle ayaa ka hadlay qaraxii lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkiisa madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si kulul uga hadlay qaraxii miino oo lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi kaas oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Waare ayaa tacsi u diray ehelada ay ka dhinteen mas'uuliyiin iyo askar lagu dilay weerarkaasi oo ay sheegteen mas'uuliyadiisa al-Shabab sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in labada mas'uul samafalaha iyo askartii kale ee ku shahiiday qaraxa waxa ay waqtigooda iyo naftooda u hureen soo celinta nabadgelyada dalkooda waxayna dadaal badan galiyeen sidii Hirshabelle u horumari lahayd ayuu yiri war qoraal oo soo saaray madaxweynaha maamulka Hirshabelle qaraxan ayaa waxa sheegtay mas'uuliyadiisa al-Shabab kaas oo lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka Shabeellada Dhexe oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Shitaawe wasiirkii hore ee ganacsiga ee maamulka Hirshabelle oo isna lagu magacaabo Sabriye Cusmaan iyo Xasan Baldoos oo isaguna ahaa samafale ka shaqeynayay mid kamid ah hay'adaha gargaarka ee ka howlgala gobolka Shabeellada Dhexe iyo 3 askari oo ilaalo u ahayd mas'uuliyiintan waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan janaalkeena wararka 24 ha mogaan daawadana subscribe dhahto janaalkeena oo furto gambalka si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya sidoo kale daawadayaal asxaabtaada ayaa la sii wadaagi kartaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya si iyaguna u helaan al-Shabab ayaa war ka soo saaray qaraxii lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle war ka soo baxay al-Shabab ayaa looga hadlay qarax xooggan oo lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle kaas oo lagu eegtay deegaanka Gololey ee dhaca inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe al-Shabab ayaa sheegay in qaraxaas oo ahaa miino lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo ay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle afayeenka howlgallada al-Shabab Cabdulcasiis Abu Muscab oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka al-Shabab ee Andalus ayaa sheegay in weerarka oo ahaa mid qorsheysan lagu dilay mas'uuliyiintii bartilmaameedku ahaa isla markaana uu dhacay sidii loo rabay sida uu hadalka u dhigay mashaacin afayeenku qasaaraha iyo magacyada mas'uuliyiinta lagu dilay qaraxaasi sida aynu xogaha ku helayno waxa qaraxa ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda ee gobolka Shabeellada Dhexe Cabdullaahi Shitaawe wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga Hirshabelle Sabriye Cusmaan iyo nin lagu magacaabo Xasan Baldoos kaas oo la sheegay inuu ka shaqeynayay mid kamid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada maamulka Hirshabelle ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah kama aysan soo bixin dhanka maamulka Hirshabelle marka laga reebo madaxweynaha maamulkaas Hirshabelle oo tacsi u diray dadkii ku geeriyooday qaraxaasi al-Shabab ayaa inta badan weeraro jidgal iyo qaraxyo ah ka fuliya wadada dheer ee isku xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan janaalkeena wararka 24 ha mogaan daawadana subscribe dhahto janaalkeena oo furto gambalka si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya saraakiil ka tirsan al-Shabab ayaa lagu duqeeyay magaalada Jilib wararka ka imaanaya Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in duqeyn dhanka cirka ah laga fuliyay degmooyinka Jilib iyo Bu'aale ee gobolkaasi duqeymaha oo ahaa kuwa isxixiga ayaa waxaa la sheegay in la beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahano iyo hogaamiyeyaal ka tirsan al-Shabab saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in duqeynta koobaad oo ka dhacday Jilib
lala bartilmaameedsaday guri ay ku sugnaayeen saraakiil ajaanib ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab. sidoo kale duqeynta labaad oo ka dhacday Bu'aali ayaa lala eegtay goob kale oo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab. sida ay saraakiishu xaqiijiyeen waxaa duqeyntaasi lagu dilay ilaa 2 sargaal oo Kenyaan ah kuwaas oo ka tirsanaa al-shabaab. dhanka kale waxaa diyaaradaha dagaalku ay duqeyn kale ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in duqeyntaasi lala beegsaday xarun lagu tababarayay xubno ka tirsan al-shabaab. ma cadda ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay weerarkan, welina ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan duqeymahaasi kala duwan ee ka kala dhacay gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka. guud ahaan daawadayaal waxaan inta kusoo gabagabaynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya. ha moogaanin daawada inaad subscribe dhahdo channelkan oo aad furto gambalelka, sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya.